نبعي waxaan u ogolaa in nolol ku noolaadaan ani waxaan ka hadlayaa okay jawaab nolosha ay ku noolaanayaan ma in ay dadka Soomaaliyeed mindiye isugu dhiibaan oo isku diraan oo qabiil ka hadlaan oo ree hebel asaane ree hebel ataagay hebel ataagay nolosha oo bisha inay ku noolaadaan waa niman waaweyn ay shaqaystaan oo kacaan oo warshadaha tagaan oo wax qabsadaan adigoo kale oo nacabtay lacag sameeyaane beer idweys nada faqaman ay wareerinayaan idweys ayub I know inuu qadiyada iyo qabyaalada iyo waxaan ugu jiro laakiin isku TV ma daawano madaxdii Puntland ay soo wacday moogta madaxda Puntland indaano oo adigu soo waceyso madaxda Puntland oo adigu soo waceysa ma dabay kulaalayaan oo barafa wadankii ka dhacay yaa maxaa si abtiliibano aniga iyo adiga isku TV ma nihin moogta inta isku TV-ga waslada adiga leedahay waa ku TV-ga waslada ka shaqeynayay meeshaanay mar dhow ka kala ka cirabtaa moowiye Snapchat waxaan ka soo tiriyay 6 milyan ku jirto Snapchat aniga iyo adiga isku dad badan qaabana maadaama madaxdii Puntland ay soo wacday waxay ugu dhaheen ninkaan annaga imaamad saaray marka maamo yani waxaan ka wadaa adiga garaac oo karbaas oo waxaan ka sheekay laakiin adiga sheekada hay ugu soo leexinaan mafan adiga horta fulimadii ka baratay wadnaha ku go'ay hadii la aado waxaad ka boqoysaa Axmed Rashiid xamar hadii lagu Axmed Rashiid yaa baariisa kali karaba hadii lagu dhaho xamar aad xasan sheekh wadigle in lagu qalaata baqaysaa Puntland aad hadii lagu dhaho reedan dadka ka baqaysaa yaaba igu dishay waaba diyaare wadniya ku raacday reedan waa turki soo reedan naga baqaaya waa ka baqaa reedan afar xabo oo dadku dilo waay waa ka fiicin in kala buurti la joogta oo hubaysan oo qofkii la hadlanin iyo naag bay bax ku filan ma waxa la igu dhahay wiilkan kabtan Ayub annagoo